dooqa raggu waa uu kala duwan yahay marka ay timaado raaxada galmada, laakiin marka la eego shacabka adduunka, khaasatan qaaradda Afrika, raggu waxa ay jecel yihiin dumarka culus marka loo barbardhigo kuwa caatada ah, balse cayilka zaa'idka ah laftiisu dhibaato ayuu leeyahay marka la joogo sariirta. Ragga madow waxa ay jecel yihiin dumarka jirka leh oo doolaha iyo naasaha u waaweyn. Dumarka caatada ah raggu ma jecla, sababtuna waxay tahay marka sariirta la joogo aysan lahayn raaxo fiican. Qayb weyn oo galmada ka mid ah waa in aad ku raaxaysan kartaa jirka xaaska ama sayga. Dumarka aan hilibka lahayn oo lafahooda dibadda ay yaalaan way adag tahay in lagu raaxaysto jirkooda. Ragga caatada ah laftoodu waa la mid. Dhanka kale, dumarka aadka u cayilan ee culus laftoodu waxay u baahan yihiin awood dheeri ah in sariirta lagu maamulo, khaasatan haddii ay gabadha doonayso in ay dusha ka fuusho ninka. Waxaa macquul ah in ninka ay dhib ku noqoto inuu qaado culeyskeeda. Ragga qaar waxay sidoo kale jecel yihiin in gabadha ay xambaaraan oo xitaa ay istaaga ugu galmoodaan haddii gabadhu ay aad u culus tahay. Dhinacyada galmada qaarkood ayaa laga yaabaa in ay suurtageli weydo. Sidoo kale, ragga guska yar ayay ku adag tahay galmada dumarka cayilan oo laga yaabo in uu gaari waayo. Ugu dambeyntii, wax kasta waxa ay ku fiican yihiin dhexdhexaadka. Galmaduna waxay ku macaan tahay gabadha culeyskeedu uu yahay mid dhexdhexaad ah oo aan zaa'id ahayn isla markaana aan